بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال جوجوك تي في أيضا نقد داونيسان وحين سوق من دون ورئيس الجارة ونعيب بدن تابعني والله يلندونه تريو كحجين كي هراء إنه بسوقدي شردون كقرن كصوماليا مدني عبد السلام قولت قد بدورة أيام وحكوا يدين دونا حالة جود دالك حالة كالجور كأمنية بالشدة الشيء فراه كسي بحيو يهرم كلام وكأدن دور شوي تريو كشدوا مركور جوجوك تي في waayahay waxaan rabaa su'aasha ugu horeeyay inaan ku weydiiyo waxaan kaaga mahadcelinaynaa marka waqtigaada qaaliga ah oo aad nasiisay maxaad ku qiimeyn lahayd xaaladda amni ee xilligan dalka bismillaah waxaan dheelahay xaaladda amniga waddanka ka jirta waxay ka xun tahay xaaladda amniga ka jirtay 5 sano ka hor waddanka waxaan kaloo dhihi lahay xaaladda amniga waddanka ka jirta waxaa ka muuqata mas'uuliyad darro iyo dayac waxaan maleeyaa dad badan waxay dhahaan maxaa keenay inay sidaan wax u dhacaan marka midaalan ku soo qaadanaya wixii dayacan way dayacmaan marka xoolaha hadaan la jirin baylax bay noqdaan amniga Soomaaliya maanta ciidu lama jirto marka waxa meesha ka maqan waa amnigii oo ciiduna la jirin dabcan cadow uu leeyahay waddanku al-shabaab number 1 ka yihiin ayagana ku takrifala siday rabaan ka yeelan maanta waayahay maxaad u leedahay 5 sano ka hor amnigii waa ka daran yahay sababta waxa bulshada inta badan ay qiimeynayaan in bilihii dambe oo amnigu hoonaanayay maadaama jiid wax badan ay ku xirnaayeen bal wax la taaban karo oo ugu soo qaadanaysa example maxay tahay haddaan soo qaato kale waxaan maleynaa magaalada xamar oo miinada dhulka la dhigo qof la kacdo ama qof la kacda muddo dheer ugu dambeysay asbuuciyada ma bilihii u dambeeyay waxaan arkay intaas oo qofooday la kacda miinada dhulka la dhigo waxay ku tusaysaa in isbedel amniga ku yimid waxyaabaha kale oo iyadana cajiibka waxa kamid ah maandhaxdaas hotel la galay la yiraahdo elite waxaan arkayay ciidamo militariga Soomaaliya dadkiisa ma amniga ka tirsan oo u gurmanaya hotelka qaab qabiil ugu gurmanaya macnaheedu waxay tahay waxa meesha ka baxay isku haleyntii ciidamadii Soomaaliya kalsoonida lagu qaba askariga Soomaaliya sababtoo askarigu wuu yaqaanaa hotel elite meesha ku yaalo iyo marka loo tagayo daruufaha la maro iyo checking-ka la maro hadii marka laga gudbo meesha la weeraray wuxuu u arkay ciidan boo la isku haleeynaysan jir ama laga yaabo qofkii mas'uulka ahaa ee meherada lahay laftiisu inuu arko dadka meesha joogaba oo hotelka ka shaahayo mas'uuliyiinta inay wacdaan ciidan yaqaaniin ku kalsoonayaan ciidan boo la isku haleeylama marka waxyaabahaas markaad fiiriso waxaad leedahay Soomaaliya dib u dhac weyn ku yimid dayac weyn ku yimid hay'adaha amniguna waxaad malaysaa inay gacanta ka baxeen shabaabna ay fursad u heleen maanta inay ka faa'iideystaan xilligan ee kala guurka ah markii la gaaray inta badan waxa soo batay qaraxyada iyo weerarada al-shabaab geysanayaan maxaa sabab waxaa laga mashquulaa in wixii cidii hay'adaha amniga gacanta ku haysa amniga laga mashquulaa sida dadka Soomaaliya institution taagan oo iskood u function gareeya iskood u shaqeeya oo qofka sare go'aamadiisa aan daqiiqad kasta u baahneen maaha waa meel qofka jooga dad fiiriso Soomaaliya sida badan hadii wuxuu xisbi yihiin qofka xisbiga mas'uulka ka ah baa inta badan muuqda hadii qofku taliye yahay ama wasiir yahay asaga baa muuqda hadii marka qofkii mashquulo Soomaaliya wada siyaasiyiin adoo siyaasad ku mashquulo meesha waxa ka baxaya in wax qabadkii daqiiqad kasta wax la qabanaya ama chaganba in la hubiyo in askartii wax qabanayso marka Soomaalidu siyaasad bay u dhaqaaqdaa markii la soo gaar sanadka ugu dambeeya siyaasadda loo wada dhaqaaqa hadda dawladdaanu ma ku sii jirto maanta xukunka haysta madaxweyne Farmaajo waddanka dhan waxa la yiraahdaa markii hore wuxuu jiray 4 nin baa gacanta ku hayso milkiyada dawladdan laha jirto mid wuxuu ahaa duqa hore magaalada Muqdisho Thabit waxa la yiraahdaa wuu baxay marka saddex baa soo hartay prime minister Khayro soo haray isaguna wuu baxay hadda marka la waddanka dhan waxa ku soo haray taliyaha nabad sugidda Fahad iyo madaxweyne Farmaajo labo qofood oo waddankii dhan oo Soomaaliya ah iyo adduunka danta kala hay Soomaaliya iyaguna intoo kale malaayiin ah hadii awoodoodii iyo koolashoodii email-adoodii go'aamadoodii ay laba qofood ku soo dhacayaan waa dareemi kartaa inaysan awood u lahayn inay hataa naftoodii ay wax u cunaan iska daa inay ummad kale ka fikiraan taasina waxay keentay in dayac iyo maaragtay iyo baylax oo noqdo amniga Soomaaliya shabaabna way fahamsan yihiin saacadaana aad ugu xisaabay waayahay amniga iyo doorashooyinka saameyn isku leeyahay aad doorashooyinka hadda Soomaaliya oo kale dawladda Soomaaliya waxay ku dhigtay wax la yiraahdo doorasho qof iyo cod doorasho qof iyo cod waxaan maleynaa waa wax lagu taamayay ama qof kasta Soomaaliya oo doonaya inuu maalin uu arko noloshiisa inuu codkiisa si xor ah u dhiibto qof oo wax ku raacay ama wax ku doortane oo codkiisa si
taasina waxay keeni lahayd qofka Soomaaliga inuu yiraahdo xildhibaani waa ku doortay nagumana soo noqon sida badanna way dhacdaa de hadda maba xildhibaanadu maalintii ay soo qaateen kaarka un baa dib ugu inta badan uma naataan inuu cabsado xildhibaanku uu yiraahdo sanadkan doorasho u tagi doona hadaan dadkii dib ugu noqon qofka Soomaaliga marka fursad waxay u sii lahayd inuu xaq u yeesho in loo shaqeeyo oo cid uu codka siiyo kula xisaabtamo laakiin jacaylkaas waxba ma qaban dawladihii haddaan ka soo bilaabo dawladii Sheekh Shariif oo de waqti muddo yar wadanka haysay dawladda Xasan Sheekh waxaa lagu taamayay qof iyo cod in loo diyaariyo wadanka qof iyo cod marka ma la diyaarin karaa qof iyo cod Soomaali diyaar ma u tahay aan fiirin marka qof iyo cod waxa la yiraahdaa dadku waa inay horta diiwaan gashan yihiin oo dadka Soomaalida ah waa inuu qofku diiwaan leeyahay magac leeyahay ID card leeyahay number uu ku codeeyay leeyahay oo meel uu ka tirsan yahay ciwaan iyo guri waa in guri kasta la yaqaan inta qof wada ka codeysa albaab kasta ganjeel kasta wadankan ku yaal ama guri kasta wadankan ku yaal inta qof wada ka codeyso iyo numberka uu leeyahay jidka uu ku yaalo waa in tirsan tahay haddii gurigan 12 qof wada degan tahay ee 7 kamid ah codeyso waa in 7daas la og yahay ma jiraan wadanka boqolkiiba 90 wadanka ama ka badan ma jiraan dadku ma diiwaan gashaan markay aad tiraado dadkii noocaas ahaayeen ID lahayn madaxweyne Farmaajo hadda iyo guddiga doorashooyinka si uun runtaan islaahay waaba ceeb ama de miyaa wax ka qaldan yihiin ay daqiiqadaha yartahay haray bilaha waxay ku dagaalamayaan qof iyo cod aan qabanayna qof iyo cod ma qaban kartiin dadku ma diiwaan gashan haddii abnigi wadanka haddana soo laabanayna wadanka abni kama jiro laano de magaaladii Xamarad waxa ka dhacay arkaysa xabsigii dhexe meeshii loogu difaaca badnaa wadanka ayaa hub la geeyay bay ka dagaalameen asbuucyo hore hotel elite oo dhinac kasta ka xiran oo adaadan ID card wadan oo aan lagu aqoonin oo baawurkaada la baarin aadan gudbi karoon gali karin baa la galay wixii ka dhacay dad aragtay buulaxaaw ayaa qarax ka dhacay macnaheedu shabaab waxay ku leeyihiin xayndaabka dhagaxaanta dhexdoodana waxaan rabnaa ka sameeynaa xuduudahana waxaan rabnaa ka sameeynaa awoodeenu waa sideedii go'aankan anaga iskale soo hadamaad garan waa fariin ay dirayaan waxaan u maleynaa ma dhaxtina aragta viral ay noqoto viral waxa yiraahdaa waxa de xarkaha goostay oo qof kasta gurigeeda u tagay meed garabka lagu sugay qof Soomaali oo meedkiisa garab lagu galbinayo ma xasuustaan waligeey maar waxa igu soo Gaza yani marka Palestine aad aragto ama Kashmir dadka meedka garabka ku sida macnaheedu waxay tahay baabuurkii baa soo gali waayay kii ku jirina ma bixi karo waxyaaba kale hadda xamar aan ka noqdo waxay tahay in la yiraahdo markaan u soo gudbo marinka dawladda baan kula soo hadlayaa ama dhinaca kale aan jiraaho la imaan karo marka waxaad idaacadaha ka maqli jirto mala BBC-da waxa la yiraahdo daanta galbeed Gaza ama Hebron ama maaragtay baad maqli jirto waagi hore oo de Israa'iiliyiintu ay xad dhagaxan ku kala xireen dadkii Falastiiniinta dhexdana satellite ama dadka deegaanka Falastiiniinta Israa'iiliyiintu ay degan yihiin Soomaaliya hadda magaalada Muqdisho waxa ka jira daanta galbeed maaragtay Cabdicaziz iyo daanta waqooyi maaragtay iyo meesha la yiraahdo waa bari baa Soomaaliya maanta noqotay marka Israa'iil amal waxa dareemaysaa in daanta galbeed iyo daanta waqooyi iyo koonfureed ay maanta xamar ka dhex samaysantay taasne doorasho laguma geli karo saad ka dhawaajisaba wadooyinka Muqdisho dhan aan nidaam dhagxan ayaa ku go'an saad sheegtay meedka garabka ayaa lagu qaato meel ugu dambeysay bis ay ka dhacday magaalada qaylaxyadu waa istaba joog إيه فرق بدن وين جوعان مقالدي ما صلاة حجيسك قبلها وعوين سيدنا دايك وش يا جماعة حتى دي ضيع حتى عيدونا وحبة جري دكان كذا ده تفرطه يا تكتكته لما يامي سدي وحي جوا الصوت ماذا شو ماذا قال حولها دي دور للجية ده واحد تاسو بحال هجوكته يعني دوت ماذا حولي وبحالنا عيدونا إلى علم لما يامي سد محيو ضيع من مديش لأنه حاجتين عيدونا إلى صومالي ابن جيدي قعنته كبح عيدونا كمان مغنى عيدونا كمجرته شو ماذا قال عدوي مركز ومدى الصومالي عني الشباب جوه الرية أياس كجرين توجا كلا كجرت قبيل كجري موريان كجرتي dadkii bayla xibiyeen banaankii u yaalay taas marka waxay keentay in meeshii rabaan wax ka sameeyaan maanta waxaan ognahay oo qarsoodi ahayn oo qof kasta og yahay laga yaabo in dadinka laftiinu dhiibtiin canshuurta al-shabaab la siinay Soomaaliya garan macnaheedu maxay tahay qofku shabaab ma jeclo wada inuu ku dilo laakiin naftii baad ku gadanaysaa ama maalmo noolaata inta qola ka soo gaarayso uu nimankan ka celiisa الشباب حيلين دادو حسابيه وديتري سيلي لو حسابيه حافظ وقابشيسه دكامده هديين كو دارك ددا وقابشيسه بصش يايده قلا وقابشيسن
soomaalida garan carwooyinka kuwa u qaabishay hoteelada qoraa u qaabishay malaayiin dollar ay shabaab aruuriyaan waa dawlad kale haddana cid ka fal celinaysa ma jirto waxa marka ay ku tursinaysaa qof iyo doorasho haddaan ku soo labta kelmadaasu inay tahay wax la yiraahdo ku darsasho dadban madaxweyne farmaajo waxa hadda maleena hadalka socdo wuxuu yahay doorasho dadban oo la yiraahdo 2016 oo hadafku ah in la gaaro doorasho qof iyo cod laakiin cid ka mashquulshay cid wax ka qabatay aysan jirin guddiga doorashooyinka oo waxba ka qaban haddaan yiraahdo waxba kama qaban kuma dambaabayo wax uun workshop iyo dad meel lagu shirshiriyay waa iska caadi xafiisaan ka furan meel waa nonsense waxaas wax weyn oo dad loo sheega ma laakiin wax loo diyaariyay Soomaali maanta oo in dadka la diiwaan geliyo iyo in dadka maarta doorasho loo diyaariyo oo qofku og yahay in doorasho macnaheeda kama jiraan magaalada Muqdisho ma la doorto duqa magaalada Muqdisho iska dhaaf inta kale dawladdu waxay joogtaa caasimadii bay joogtaa duqii Muqdisho ma la doorto dadka xabar ma doortay inta gobolada wadanka aadin lama dooran macnaheedu maxay tahay maba u diyaarsanaba deegmooyinka xamar ayaan dadku doorasho gali karin laana ninka canshuurta ka qaadaya ee si fiican kula socda ma ka dhuma kartaa saf miyaad gali kartaa hadduu ku yiraahdo to ku soo wac doorasho ma gali kartid shabaab wadanka waxbay ka xukumaan waana awood jirta lama inkiri karo dawladda Soomaaliyana waxba ugama diyaarsana amniga doorashana waxba ugama diyaarsana marka ku darsashada dadban ee uu ka xishoonay maxduur waqti hal igu daro waxaan isleeyahay waa ceeb madaxweyne xasan sheekh aad u rabay inuu sii joogo laana waxa halku dhigiisu ahay qabyo ninkeeda dhameystira macnaheedu maxay tahay warina sii joogan raba waxba yara iga qaldane in waqtiga igu dara laakiin wuxuu aaminsanayo la xaw ka hayay wadanka ma uuna doonin xamar lagu dagaalamo saraha la xaw ka hayay iskoolaadka la xaw ka hayay istaalada la xaw dadka la xaw ka hayay marka wuxuu lahay hadii daadii garaweyso oo Umar balan doorasho xageeda aad waa laga qaado si sharaf oo ku dhiib madaxweyne farmaajo laakiin waxa u muuqata waxa soo dhan inaysan u muuqan oo leeyahay wariyada ama waan dagaalamayo oo gurihiin waa burburayaan anu jaakad iyo waxaan ku imid boorso ama waxaad ii ogolaanaysaa waqtiga aan doonayo marka waxaad malaysaa waxa weeyaan inuu dadkii handadaad madax furasho ah oo xukunkii ka dhigayo arrimaha doorashooyinka si guud ah ugu imaanayna amniga marka ka baxno waagii taliyaha soo daadeed xildhibaanada idin yeeri jireen markii waxyaabo dhacaan waa la xisaabtami jiray hadda isla xisaabtan inuu soo jirin xagga baarlamaanka hadii ahaaday hadii kale bal xagee oodii ka gaabsan tahay oo taliyaashii iyo in la xisaabtamo Soomaaliya waxa la xisaabtama qofka awood badan tahay leen ilmuhu aabaha lama xisaabtama laakiin abuhu ilmaha waa la xisaabtama baarlamaanka Soomaaliya ee maanta jira waxa aabba u ah hay'adda nabad sugidda iyo madaxweynaha iyo prime minister xafiiskiisa halkaas baa laga hagaa nasiib darrana waxay noqotay in baarlamaankii maanta hogaamiyaan shakhsiyaad siyaasadda Soomaaliya macno weyn ku lahaa jirin muuqaal weyn leh hatta qabkooda oo sanayn qab qarannimo iyo Soomaalinimo oo sanayn marka waxa inay cid u yeelaan iska dhaafayda iyaga xafiisyada loogu waca Soomaalida garan annaguna waan cabsan jirnaa waxaan isleeyahay hadii maanta lagaaga hor waco baarlamaanka grillin waxa la yiraahdo way ku dubi doonaan dadku baarlamaanku ku dubaya Soomaalida garan de ka cabsan maayaan awoodda ka laakiin maanta waxa jira baarlamaan yaro xarooda subcinaya oo xaroonaya oo soo xaroonaya oo kala tagaya oo la kala fasaxay marka waxay noqdeen aalad la leeyahay baarlamaanka Soomaaliya ay leeyihiin shakhsiyaad yar oo kooban ama cabsi ha lagu lahaado ama de xirfad iyo lacag ha lagu lahaado laakiin waxaan isleeyahay aad ay sharaf dhac ugu tahay dadkii sharci dejiyaalkii Soomaaliya ummadda Soomaaliya mas'uuliyadeeda ilaalinayay la xisaabtamay golaha fulinta Soomaaliya in ay maanta noqdaan kuwa la kala fasaxo sidii dugsiyada Quraanka iftax wax la ilaal sameedan la isugu soo marka waa nasiib darro sidaasayna ku dhacdayna maanta cid la xisaabtantaa jirin ashaab hadda waxaan ognahay gudihii weerar xoogan ay ka fulinayaan oo iska badaa in meelihii ay ku sugnaayeen looga tago bal maxaa diidaya in shabaabku meelihii ku sugan yihiin lagu dagaalamo si culayska ay magaalada Muqdisho uga dejiyaan dhulka xorta ahay markii dawladdan imaanaysay waxaan mar ilaa baraabo gaadiidka xamarka tago ilaa baraabo tagay dhulkay marayeen al-shabaab dhul badan baa laga qabsaday way ka qabsatay dawladda Soomaaliya ciidamada Soomaaliyana ayagoo ognahay dhaqaale darrada haysata iyo imkaaniyaad la'aanta iyo tababarka iyo qoroga oo haysto inuu aad ka shabaabka uu la mid yahay haddana geesinimadaasi ku socdeen ciidamada amisom wadanka joogay 20,000 iyo waliba wama saada waxa gaashaan u hay askariga Soomaaliga hadduu hortiisa ka dagaalamay oo dagaalamay saasoo tahay amisom way soconaysay laano de cid la wariyada waan la xisaabtamaynaa hada ammaanka suga oo de dhulka xoreeyada ameel jirtay horta dawladda markay timid in amisom la xisaabtanto
ama ay tiraahdo 20 kun tiireen maxaad qabatiin meesha ka bax maba la hadlaba waxa dhacday in marka maalinba poster la qabto hadaadan weerar ahayn difaac kaliya ma joogi kartid maadaama marka weerarkii uu dhamaaday difaacii baa loogu yimid intaas soo xiro ay dib uga soo gurteen ciidamada ciidamada Soomaaliya waa la soo xarooday Soomaalida garan waxaan arkay ciidamo la geynayo meel fog tooro agteeda meel la geynayo la leeyahay waxa la geey bari raal la dhaafsiyo oo deegal agteeda waxa Soomaalida garan askariga meesha la geynayo jidka uu marayo amaan ma aha meesha uu joogana amaan ma aha ma oo jidka dhinacyadeeda ciduna wax shabaab baa haysta marka askariga waxa maraysa wixii project miya ruuxu NGO oo la leeyahay meel heblo waan joognaa budgetka noo soo fasaxa Soomaalida garan waad aragtaa askarti way ku la'aanayaan jidkii dhaxamiyana loo geeyay waa lagu baabeynaya isku soo duubo maanta ma jirto askari Soomaaliyeed cunto loogu qaadi karo ee jawhar aadaya ama cunto loogu qaadi karo ama bisomba diyaaradaha cunto lagu daad goreynaya gaadiidkii isagama socdo logisticii waa la geeyay amaankii iska dhaafin shabaab loogu tago meelahay joogeen ayagii baa noo yimid oo magaalada Muqdisho noogu yimid hanoo imaadeene waxaad u malaysaa cid ka fal celinaya inaysan jirin magaalada Muqdisho waxaan xasuustaa waad ogeedo gaadiidka nabad sugiddu in kastoo anigu aan qabay in nabad sugidda ay wax qarsoon noqoto haddana hay'adaha gaadiidka nabad sugiddu aad u socdeen way arki jirtay howlgala dhici jiray waxaad arki jirtay hebel la soo qabtay network badan oo isku xiran al-shabaab maanta la fashilay waxaas hadda ma jiraan network lama fashilayo gaadiid ma arkaysid wiil bastoolad qabo ma arkaysid al-shabaab baa waxay rabaan sameey lagamana fal celiyo isku soo duubo ciduna ma bahada shaba hatta wixii dhacay cid fasirtaan la anahay baraha bulshada waxyaabaha cajiibka oo dhacay waxay tahay gobolka Banaadir dhacdadii injineer Jiliso lagu dilay aniga wiilkayga baa ku jiray agaasimayaasha kamid ah dhacdadaas qof kastoo Soomaaliya iyo qof aan Soomaaliya intaba waxa u muuqatay inaysan ahayn wax iska dhacay oo ay tahay wax laga wada shaqeeyay fursadaas dadkaas ay ku tageen meesha wax baaris oo ka soo baxay ma ayna jirin waxa dhacda marka dawladdii waxaan ka sugaynay inay sawirro arooriso CCTV camera fiiriso footage waxaanan ogeyn noo soo bandhigto daqiiqada ka bacdi social media waxa lagu soo qoray Soomaali waa dad hadal badan sida wax u dhaceen qaabkay wax u dhaceen qofka wax dilay iyo dadka la dilay wixii bal soo laba asbuuc hadana qaldaneen kadib dawladda Soomaaliya waxay la soo shirtagtay social media waxaan ku aragnay 10 daqiiqo bacdi markii qarax u dhacay literally wixii social media lagu soo qoray macnaheedu waxay tahay wax ka hadla ama wax sharaxa ama mas'uuliyad qaataan meeshii joogo marka waxaan dhihi karaa malaha dawladda annaga u maleynay xagga naga jirtay ma jirtaba anu xafiisyadii ma tegin laakiin waxaan isleeyahay waxba ma jiraan Soomaali garan marka wax jira ma jiraan saasan isleeyahay wayahay lix bilood la soo dhaafay shacabku waxay aaminsan yihiin in xaaladda amniga ay soo hagaagayso qaraxyaysan dhicino ciidanka hataa hadda jiro xilligiina ka mural fiican yihiin oo mushaar ay qaataan oo la dhiirigeliyo si ay aaminsan bal hadii sidee ku lataa bolorta askariga la dhiirigeliyo asay ka muuqaleed waxaan ma la dhowr asbuuc ka hor waxaan arkayaa askar xariye ka soo baxday oo daljirka dahsoon timid oo uniformka oo inta soo bilood mushaar mayna arag dawladdu waxay ku andaco jirtaa askarigu ID card ma lahan fingerprint lagama qaadin ma marin systemkii markaas dadku mushaar la'aan u yahay warqadii waatan aan ku maray ID cardkayga waa kan wixii bay cadeynayaan horta taasna laguma gamba karo mushaarka haduu jiro askartii ma qayliseen waxyaabo kale cajiib ka waxay tahay askartii qaylisay maalinta waxay ugu maqaalaan in kastoo la xaqiijin karin askartii qaylinaysa in la geeyay meesha la yiraahdo golaha xarunta xisbiga ee stadium Muqdisho ku dhagan ay had meeshii lagu qarxiyay la asbuuc ka bacdi markii qayliyeen ma la aamusiyay dama shabaab baa mushaar askar ku aamusiyay say wuxuu jiraan ma askartii baa mushaar ka qaylisay shabaab u aamusiyay waa maya maxaa jira adigu iga jawaab ma qaani dhinaca kale lix bilood al-shabaab maqan yihiin la yiraaho qarax ma dhicin qofka aad dagaashantihiin ama aad gabaad isugu jirtaan haddii uu waxba kugu sameeynayo laakiin aad wax saameyn ku lahayn sababtoo uu kugu sameeyay ma sheegan kartid guul mana sheegan kartid inuu inta maartaad horumar gaartay laana de asaga yaqaan sababtoo kaaga maqan yahay shabaab ayaga yaqaanay sababtii ku maqnaayeen sababta 3 bilood iyo 2 bilood aan waxba u dhicin shabaab ayagu ba garanay Soomaad garan waxa la sheegan karaa in wadanku amni yahay markii wax kasto shabaab isku dayeen laga hortagay awoodii shabaab lagu yaqay
xarumahay ka dagaalami jireen la qabsaday network-goodii isku xiraayay sirdoonka la kala burburiyay madaxii sirdoonka la soo qabtay qaraxyadoodii laga hortagay qaabka hubku u imaajira la soo qabtay waxa soo dhow markay dhacaan wax lagu kalsoon yahay oo la og yahay wixii la sameeyay waxa ka dhalan kara inay yihiin iyo saameyntii ku leedahay cadawga baa meeshaas ka dhalan kara hadda markii taas u jirin waxa weeyaan roob madiina ayaantan maxaa dhacay xilligiisii baan la gaarin ama sanadkan waa abaar baa jawaabtu noqonaysa shabaab ayaga isku maqnay waqti ugu talagalena weerar ay soo qaadeen waana kuwana cid ka falcelineysana ma la waayahay weerarkii xabsiga dhexe aysan ognahay oo askar ka tirsan ciidanka dowladda ay ku nafwaayeen iyo maxaabiis fara badan bal qaabkii baaritaankiisa loo wajahay iyo sidee adiga kula muuqata Soomaaliya waxay ku maamaada col ku dhac oo tuugo ku ciidamaysay macnaheedu waxay tahay haddii col ku dhaco qofka qolada ku soo gurmata tuuga noqoto de colna waa cadow col waxa la yiraahdaa wax cadow kugu oo noloshaada qatar ku ah tuugana waxa la yiraahdaa qola aan waxba reebayno wax ka qaadanaysa qofkaas nafna uma dhaqna oo de col baa soo weeraray maalna ilmihiina wax loogama tagin oo tuuga timid xaafadii Soomaalida gar marka haddii cidii in la baara ay ahayd la yiri wax baar cidii ay ahayd in la xisaabtamo la yiri war adigu xisaabtan deji عدي أي هاد إن ده ماركتي لا تهمه ليرا والعد سو تهم معناه هذا عيته هاي يعني على كل عيتو وكل عيدا مي مسكوا حبس كده كده عاي يعني فرسمة دولة ديت بيهت الشباب هو بلوك يعني لأنه حبس جوانا خانة دور جيران شقة أوتجي يعني مال أي فضول ده إن لسكتها أما هو بلقليه معه قفان أنت صباري تصامر إن مي مادو يعني حدي أي كوكب نعيان مركا حتى aan dhahno waxay ku koobnaan dad yar oo hoose oo muwaaridiyaha iyo taliyaasha xabsiga iyo waxaas ku koobnaan dan dhiileen falcelinaan ku arki lahayn dawladda dabaqadeedii soo tiraada waa lagu xadgudbay amnigii iyo kala dambeyntii dawladda waa in qof la xiray oo mid la xisaabtamo maxkamad la soo taagayo waxba arki lahayn Soomaa waxba ma arag gobolka Banaadir wixii ka dhacayo yariisu ilgu dadkii waxba cidna looma xirin tan cidna looma xirin waxa ka tan elite wixii ka dhacay cid looma xiri doono sababtu maxay tahay ciiduba ma joogto cid xisaabtanto يعد له حساب تما ودنك ما جيران marka waxaan dhigi karaa anigu waa dawladii ugu xumeed ee Soomaaliya soo martay intaan hadda aragnaa naga uguna hunguru badneed ee Soomaaliya soo martay ugu dareen la oo qab dareenka yani dareenka bini'aadanimadu ugu yar yahay waxaan jeclaa lahay in wax lagu fasiro afka Soomaaliga looga helo laana waxa noo yaala kuma filla inay sheegaan dawladdan waxay ku fikirayso qofka wuxuu ku leeyahay prime minister ka soo socda ma taqaana yaa waad u malaynaysa marka waxaan ku yiraahdaa laba qofooda wadanka ka talisa sida naba kugu sheego amaanka madaxweyne Farmaajo iyo taliyaha hay'adda nabad sugidda Fahad Yaasin qalbigooday ku jiraan marka prime minister marka qof qalbigiisa waxa ku jira suurtagal ma inaad ogaat ilaahay baa garanay marka wadankane meesha u socdo iyo sida wax noqonayaan ilaahay baa garanay waayahay waxaan ognahay aan wada qarnay in qaraxyada dhibaatooyinka ay bateen رئيس القير واحد بال أنا مين ومغيه وما مودا إن لا يرغون سيدا أنتوا جوجي حلو ما أم لينا يهدو جوجي لين وحكي بدلالها هي لكن هذا واحد المركز جزيرته إن عدو جادو أما عدة هيسان إن مركي هذا وقت هنا كلا دات سنتها سكون مشغول سنتها إن دهودو كهذا تبيهين إن وفاء إيديسته واللي بتكسر هرمري سوى وقت كده وتلقى شيء الله درسته aad bay aqliga ugu jirtaa marka waana aaminsanahay laga yaabo shabaab weeraradooda iyo xooggan iyo juhdigan iyo forsiga hadaan u jeednay ugu talagalay dhowr bilood ka bacdi inuu yimaado laakiin hadda ay soo hormariyeen maadaama ay fursadii arkaan madaxweyne Farmaajo hore wuxuu sheegay amniga uu xoogga saarayo dhowr barnaamij darada uu ka hadlo wuxuu sheegay amniga inta badan uu ku guuleystay ma aaminsantahay adiga in amnigii intiisa badan uu guuleystay waa inta ka soo sheekeynayay malaha amnigana isku sii u aqoon hadduu amniga u yaqaano in madaxtooyada oo ciidamo keeno waa sugu og yahay meesha ka keenay laakiin aan ku hor loo yaqaan dadku waxay ku leeyihiin Eritrea laga keenay de meel laga keenay ma aqaan Eritrea mise Ukraine mise meel laga keenay ma aqaan laakiin waxaan ogahay in ciidamadii madaxtooyada la bedelay hadduu taas amni u yaqaan hadduu amni u yaqaano in wiilal yar yar oo hub gaara wata de lagu suuqyada lagu yaasho hadduu amni u yaqaan dabcan de taas asaga yaqaano anuguna amni uma aqaan laakiin waxaan aaminsanahay Soomaaliya amnigeedii waa dayacan yahay taa ma dhihi karee xarigiyo tusbixi wuu furtay cidda dambe oo timaadeen isku soo xirtana waqti weyn ay ku qaadan doontaa waana mid aan leeyahay
miyaan laga xishoonin in la yiraahdo doorasho qof iyo codaal la gala ayadoon meel la tagi karaa jirin maanta waayahay amni darradan dalka jirta iyo khilaafku dhexeeya dowladda iyo maamul goboleedyada la dhihi karaa qayb ay ka tahay طبعا qayb weyn ka tahay Soomaaliya waa wadan la yiraahdo wadamada la yiraahdo fragile state oo aad u jilicsan fragile aadahan waxa la yiraahdaa dhaladoo kale waa fragile waa wax kasta oo inay jabaan hadii aan la ilaalin inay jabaan ay suurtagal tahay Soomaaliya waa wadamada inay jabaan ay suurtagal tahay wax kasta way jabin karaan dowladda Soomaaliyana haduu madaxweyne Farmaajo fahmay dowladda Soomaaliya waa dad isu tagay weeyaan waa maamul goboleedyadii iyo dowladdii dhexe international community-guna shareholder ay ka yihiin sayaga maal gashtay mayaga mushaarka diibay wasaaradaha iyo dowladda iyo ciidamada iyo AMISOM wadanka dhaqaalaha ugu badan international community ku bixiyay share ay ku leeyihiin Soomaaliduna maanta arkay sawir qof soo dhigayo calaal sidaan gacan sidaas oo calankii Soomaaliya kartoon yaro qof u eg baa kor saaran marka UN-kii baa caana siinaya AMISOM-na way ku jiiftaa international community-na ma rabno ku qoran ee kartoonka yarka marka qofka Soomaaliga hadoo inkaraya international community ba saameynta ku leeyihiin waa qalad share-ka ugu weyn iyo accountability ugu weyn international community askale dowladda filla Soomaaliya joogtane waxa waardiyeeya ciidamadii AMISOM oo dowladda Cabdullaahi Yuusuf la yimid dalawaykan la keenay oo Ethiopiankii bedelay ilaa maantana ayaga halbooliyaasha wadanka ilaalisha ma aaminsani marka haddii aan isfaham jirin oo Jubbaland xuduudeedu u xiran tahay oo ogtahay awood dawladda inay tiraahdo hawada soo geli karto diyaarad xamar ka timid oo Puntland awood u leedahay inay tiraahdo hawadeena soo geli karto diyaarad xamar ka timid macnaheedu waxay ku tusaysaa inaadan awood u lahayn at central government ku dictate garayo tiraahdo wadanka aniga ka taliya xuduudda south west ama koonfur galbeed baydhabo xarunteedu tahay waxay ka bilaabataa kilometer 13 Soomaalida gaar wixii ka dambeeya ma wax kunto dawladda federaalku waxa xukuma madaxweyne lafta gareena xukuma haddaad meeshan ka baxdan markaad aad arfid hore u dhaafto wax yar waxa xukuma Hirshabeello waara dawladda dhexe meel ay gaar u leedahay horta aad u yartahay Soomaalida gaar dadkii intaas kula lahay marka oo xuduuduhu saas kugu xiriirsan yihiin haddii aadan wada shaqeyno kala dhexe kalsooniyo kala dhexe isfaham kala dhexe oo siyaasadda aad kula dirirtay طبعا wax kasta wad ka dayacmaya abniga dawladdaanuna waxa la wixii awood lahayd iyo wixii juhdi lahayd iyo wixii aqli lahayd wixii isugu geysay hebel waan ka adkaaday hebel waan ku taaganahay hebel anigoo bariya hebelna anigoo mudaaci yahay waxaad malaysaa nooc min pulling oo qof qalbigiisa ku soo koray inuu si maanta laga adkaado uu ka adkaado dhaqankaas muuqdo mana dhaqan dawladnimo waayahay waxaan ku laabanaynaa weerarkii Elite Hotel waan ognahay in amnigiisa aad loo ilaaliyo oo la wado kaliya laga soo bilo haddana la galay ciidankii aan arkayna qaabkii wax u badbaadinayeen oo nasadooda inta iyaga halis ugu jirto xirge waxyaabo la mid ah la qaaday misdhihi kartaa nooc kale oo dadkii loo badbaadin kara ama fikrad kale oo fiican ayaa jiri karta aadan ugu mahadsantahay inaad su'aashaasi weydiisay amnigu waa waxyaabaha takhasuskaygu yahay meel kastood wax ka fiirinaysana meel kastood wax ka dhacana waxba ku muuqanaya laga yaabo dadkeen soo muuqan maandhood aadan uga xanuunsaday markaan arkay wiilka askariga ahay naftiisa siday naftiisii inuu bixiyo diyaarka u ahay qorogiisii Kalashnikovka ahay ama akayga dhabarka gashtay booshkii ku xiran yahay oon lahayn madaxiisa waxba uma saarna wuxuu isku difaac uma saarna xabadkiisa waxa bad celiya uma saarna Soomaalida gaar bastoolad baa ka dhexbaxaysa حرك أن حتى جرود لهين في creativity واحد لينا حتى حركة اللي جنتها حتى كعنتها بمال قريبة يقبضتها إلى هذا بوكو كوري صرت الدرب يجدو كوري سو عليك كسيدة عطاه دكتور أنت ميزان كيسو الأجي محا أنت لبا ريموت با عوضة وحاوضة جيس النيم إيوه ضمير أو أمسين إنه مسؤول كيادات الجداه كجرو سو بدادي وحنس لا وواحد وين أو قالي أو قف كسر صورتك الكاهي وإيميج أي تهاي قف كستو صومالي إنه كفانو سو هذا ما أذكر وحن أركي بدل كده تدكي جداه كسر بحشين أو حرك كسر دقيقة كبر صوماليات أو ده حرك كسر دقيقة نين حرك وحن مركز واحد صوستي أفر يطبان سنة أي صومالية قرحان ونقص عضا وأنا أركي إن experience يقبرد أي تهاي إن صار وين لقالوا شباب قبصداني ساعة كرت قالما أنت أكتهاي هوتيل هذا يسرحان أي قلال 6 ساعات 4 ساعات يقادتها حتى أنا قلت إنه هوتيل كي لا مصور ديرو هاي
afar iyo labaatan saacadood ma kala marama midkii u dhawaay mid u dhawaay galeen afar iyo labaatan saacadood ay familka qabsan jireen afar iyo labaatan saac ay shabaab haysteen waxaasoo dhan marka waxay ku tusinaysaa inaan 14 sano hal wax laga baran wixii shabaab sameynayeen waxyaabo markaan ku fikiray waxay Facebook aan ku soo qoray in fact Facebook ay ku qoran tahay maanta markii sar dabaqa ay shabaab galaan shabaabku inta badan way yimaadeen dadka dagaalamaya sarta way yimaadeen shahab ay ka cabaan ama ayagoo shaday wasaaradahana way yimaadeen waxay ilaaliyaan meel kasta meesha ugu haboon ee qofka sartan soo galaya laga difaacin karo markii sarta yimaadeen automatically sakana kuma qaadato inta ay kor ka tagayaan ay difaaca ka xiranayaan taasina waxay suurto gelisay inaan askari soo gelin sarta way isqaybiyaano laba saddex afar haday yihiin waxay soo qaybiyeen inuu qofna meesha ugu haboon ka difaaco oo askari soo gelin kuwana ay dadku ku gumaadaan gudaha ku jira laano fursad u haysta oo ogya saaxiibkiisa positionkii jooga wax marka aad u fudud baa arintaas wax looga qaban karaa laano 5 saacadood 4 saacadood ay qaadataa in askarigu uu la dagaalamo oo ninkan daaqada ku jira dilo ka bacdina uu soo galo baabuurtan Facebook ay ku qoran tahay baabuurtan liiraado hubka baad qoriyuhu karin oo kuwa Amazon tu wataan ama imaaraadka baad ku aragtay hatta hadii la waayo buruufka laan guruusarka xabaduhu ma karana hadii lagu gambado oo taatigas askarta lagu tireerin gareeyay inay gabaad ka dhigtaan oo sarta ku soo galaan hoosta markay yimaadeen oo sartana ay sarti askarta saas ku gasho shabaabka uma suurta galayso inuu nin sarta kula jiro inuu dila doonaya oo daaqada ku maqnaado ama uu qof gurigeed ku garaaco ku soo dilo waqti yar bay qaada doontaa in lagu xaliyo Soomaaliga laano ugu dambeyn ba askartu way soo galaan inkastoo saacada qaadato derbiga laga boodayo ama askariga waxa jira jaranjarooyin ayaga laftooda Facebook aan ku soo qoray jaranjarooyin xarkay alwaax laga sameeyo aan badnayn oo taas u laalaabtid aad boorsan gari garabka saaran kartid iyo kuwa xarka kaliya laga sameeyay oo badan kuwa xarka badan inta badan waxa weeyaan 10 qofood hal mar ku kori karta afka hore biray ku leeyihiin 10 qofood ku soo deey karta kuwan jaranjarada xarka yartaan ayana sidoo kale askarigu uu saaranaya si xaraga ku kori kara dadka gudaha ku jira si xaraga ku soo deey waana wax aad u yar oo dhaqaalahoodu yar yahay oo de maartay aan u badnayn qubure u baahnayn oo aan faham badan fikir u baahnayn waxaan isleeyahay marka waxyaabaha sayirka hadii maanta calaqalla aan ka bara lahayn waxaan dhihi lahayn hormaraan ka gaarnay qataraha markaas soo noqdo waxa kale oo rabaa inaan ku xasuusiyo adduunka wadamada dhibaatada joogtada ku dhacdo wadamada qaar kood waxa caan ay ku yihiin ama nasiib u yeesheen in dhul gariir ka dhaco kuwana daad baa ka dhaco gobolada qaar kood kuwa falkaano baa ka dhaco waxay u diyaarsan yihiin argagixisana kuwa badan oo argagixisada saas oo kale waxay u diyaar garoobaan waxay diyaarsadaan qalab looga hortago markay waxaan u dhacaan markay dhacaan isla markii dadka lagu badbaadiyo Soomaaliga wax sheega waxaan haday dhacaan si looga hortago Soomaaliya marka waxba ma diyaarsan dawladda Soomaaliya way iska joogtaa waxba ma diyaarsan kuwa soo socdan way wax diyaari doonaan macnaheedu sababtuna maxay tahay sababtu because qof kula xisaabtama oo yiraahdo maxaad wax uga qabalaadeen maxaad waxaan u sameeyay ma jirto waxaan inii sheegayo oo hadda anigu idaacada ka sheegayo dawladda mas'uuliyiinta dawladda Soomaaliya waan u sheegay waan u soo bandhigay laakiin meelna kama aysan qaado waxaan ku qasbana marka inaan idaacada ka sheego si ala qalla hadii uu qof jiro ka ganacsado uu yiraahdo waxaan ahayaa leega gato xilligiini weerar sidan ay u jireen ciidamadana sida uu adeegsan jireen wax ka duwan meeshan jireen xilligiini maxaa diiday inaan hor u xigtaan sin dawladda ka dambeysay waa su'aal aad muhiim ah waxaan isleeyahay waa su'aal ay qabata aniga maxaad u keeni weysay waa joogteen Soomaaliya markaad fiiriso go'aanka qofku ugu sareeya askale ani heedana masuuliyadda markaan ka shaqeynay waxaan xasuustaa waxyaabo oo aad uga bedelan waxyaabaha hay'adu ku shaqeeyaan ku shaqeynay wax kale ma ahna go'aanka waxa qaadanay qofka awood badan waxaana aan ehel u lahayn Soomaaliga wax tan hadda aan ku sheegayo wax ka muhiim markaan kale waan u bandhignay ama waan u bandhigay wax ka muhiimsan aan soo bandhig wax ka fudud wax lagu badbaadi karo laakiin madaxweynuhu ama wasiirka amniga ama taliyaha amniga ka sareeya muhiim ma aha waxaas dan weyn kama galaan waxaan xasuustaa inta anigu joogay heed dhaqan la yiraahdo anniversary sanad guuradii hay'adda nabad sugidda wax la sameeyay de waa ceeb waana qalad in hay'adda nabad sugiddu ay sanad guura samaysato ay soo bandhigto askarteedii iyo saraakiisheedii waxaan xasuustaa taliyaha
taliye markaas joogo taliye Bashiir Goob buu ahaa wuxuu maadaama uu booliiska ka yimid marka wuxuu dareemayay in la soo bandhigo qaab min maaragtay la muujiyo awooddaada iyo maaragtay farsamadaada maalin marka waxaan xasuustaa la soo bandhigay hay'ad oo dhan maxaa la keenay bajaajiyo halkaa la soo safay de waxaan isku sheegay dawladda Soomaaliya waxay ka fahamka nabad sugid ka amsanta waxaa la keenay gaari gacano caasiyaal baa la soo safay waa la soo display gareeyay markaas idaacadihii baa la keenay saraakiishii madaxweynihii xasan sheekh baa la madaxweynaha cabdikariin guuleeda wasiiraha waa la isugu waco safar la soo geliyo waa kuwa meesha beel weyn oo hay'adda gudaheeda markaas la waxaanu diyaarinay gaadiidkaas mujeedi calan buu hoos ku leeyahay mujeeda waa la garanaya waa la sii sheegay waxa lagu garanayaa calaamadaas ay leeyahay waa lagu qabtay taksigaas annaga askari waxaan rabaa in suuqa loo diro qof shacab uu qaato oo de al-shabaabki soo tiftifo Soomaalida garan waxaas ka daran markii la gaaray maadaama ay faanka jecel yihiin madaxda Soomaalidu markii la gaaray baa waxa la yiri hebel amalmarina la dhiibaya shabaab uu eber ka dhigay cadawga ayuu laayay wiilkan aad amalmarinta ku siinay national TV ga hortiisa hooyadiis jaamacadna wuu dhigtaa wasaaradda caafimaadkan uu ka shaqeeya ama waxbarasho maba ogaba inuu nabad sugid yahay Soomaalida garan waxaan xasuustaa wiil lagu qasbay inuu maalinta shahaado qaato lagu qasbay inuu xafladda ka soo qayb galo wuxuu ugu yiri waxaan dhintay markii magacayga la yiwaan markaas baan dhintay maalin dhaxaan arkay wiilku wuu nool yahay wuxuu ugu yiri 10 jeer ayaan qatar galay in 10 jeer ka intaasoo jeerna xabada la igu dhiftay waan dhima waay waxaan ku yiri markaa waxay ahayd hooyaday waxay og tahay inaan iskool dhigto jaamacad dhigto wasaaradda caafimaadkana ka shaqeeyo hadday maanta iiga jeeda meeshaan u dhaa gurigeedaan ugu noqonahaa aqalad fahamka Soomaaliya nabad sugid iyo abni dadka maanta haya ee aad leedahay ma u sheegtay war waxaasi wax ka weyn loo sheegay waxaasi wax ka khatar badan inay ku dhaqmayaan waana nasiib darro aan cid la xisaabtamay ku jirin waayahay siyaasiyiintiinaan iyo shacabkii odayaasha dhaqanka inta badan markay weeraray qarxay dhacaan waxaad idin u jeedisaan dawladda odayaasha iyo shacabkii dhammaan siyaasiyiinta maxaa diidaa in eedeynta al-shabaab iyagan loo jeediyo war qaraxyadan shacabkii waxaan ka daayay nin aad xoog cashuur ku siinaysid qasab ay tahay in cashuur ku siiso macnaana kartid eedna uma jeedin kartid sababta waxaad awoodi weysay dukaankaadan yarka ah 3 mitir ee aad ilmaha uga raadsato $20 ayuu cashuur ku dul dhigay wiilkaadii iyo gabadhaadina bas uu ku qarxiyay shalay waa ogtahay hooyadaana waxa laga yaabaa maalin dhexdaas inuu dilay waad ku qasbantahay inaad siido cashuur qofka levelkaas jooga shacabka cid lama xisaabtami kare naftiisii baa suuqa taala wadnihiisii baa quraanshadii tuqsigu cunayaan Soomaalida garan marka lama weydii karo qofka Soomaaliga maxad ula xisaabtami weys waxaan maleynayaa dadku inay dhahaan shacabku haday dawladda la shaqeynayaan maxay ayagu shabaabka war shacab wax la yiraahdo ma jira war dadka baarkii baa bislaaday war dadka waa la xukumaa hooyo wiilkeedu wuxuu yahay taqaana ma jirto dawlad la isku haleeyaa ma jirto Soomaalida garan aniga waxaan u soo joogay xog baan helnay anigoo taliye abniye oo taliye baan xog helnay waxaana loo keenay liis nimanka shabaabka nala shaqeynaya waxay noo keeneen shabaab waxay dhaheen liiskan oo dawladda kamid ah way nala shaqeeyaan ogaada waa dad magacii iyo qabiilkii iyo meesha ka shaqeeyay iyo mas'uuliyadii baa ku qoran waxaan xasuustaa waxaan idhi war dadkan aanu ka howlgalno waa Ali Maxamed waa la yaqaan aan ka howlgalno dawladda la yaqaano farmashiga Ali Maxamed ama farmashiga Xabiiba ama loo yaqaan Soomaalida garan waxa la igu yiri ninkii aan hawsha ula tago markaas iga haboonay wuxuu ugu yiri war haade shabaabku qidada isticmaalayaan waxay tahay dadkay isha ka marmara waayeen bay doonayaan in ugu diraan marka waan fahamsanahay maartay qorshahooda iyo istaraatiijiyadooda ka yeeli meel qadwa iska tuuro war hadda aan hubin barta dabgal ku sameeyno ninka nala shaqeeyo lacag baan ku siinay inuu xogta noo soo gudbiyo shabaabka dhinacooda Soomaal waana nin shabaab aanu ka daba tagno arinta iska dhaaf waxa noogu muhiimsanaa jireen
أنا ودي أنا كمان شكي كرودي وحي وسير كي تليه ما خان إسقاط أروج شكي لكن واحد زي وافهم درو وحد على مركب معلم على المحكمة برلمانكي باشيري برلمانكي وشرق هست باللي يقول عليه مسؤول كا برلمانكو عليه مسؤول كا وأبني برلمانك مسؤول كا مركز كون برلمان دور جرا لقلي مركب هو بريك في أنا لك لقاتي ولا اسمه إيماني waxaan ku qasbanaa marka inaan meel kasta farta geliyo si aan u sugo amaankaas baarlamaanka inuu qabsado maalintaas ciidamada la isiiyay waxa la yiraahdaa mas'uulka meelaha ugu muhiimsan ee baarlamaanka laga soo galay liiskii nala siiyay nin kamid ah ku jiro taliya ka baaba taliya ka liiska meel kamid ganjeelada geedadka baarlamaanka laga soo galo liiskii nala siiyay nin kamid ah ku jiro waxaan la hadlay ninkii taliyaha waxaan ku warwareed أنا ومشي يجن سيدا وحيانا كنون يقبدل عيدا كان يقبدل ما حد عيون يقبدل أنا كنا وأمر يقبدل وياه تكلمت يبان كوري وشرك بريء وداعية هبين كمان قصة الله بتقولي واجوا والسير كيبان وعي أبني عن كوري عيدا كاس يقبدل والسير كنا حكته وهي يقبدل عيدا كاس ماشي جو وياه يقول الصبح يبان وجوا إلا مركي دانو تو إمت أنا ده مدح ما هي نتقول من كورة لسن أديجا يعين كانوا بح وشغله ولا ينكجوجي إلا أن خول إلا أفرد ساعة وصعد حافظين هذا ونعيد كلام شيء كنسل حدي قترت أنت أسلك دحقلك أنت أسلك يا الشباب نقول حليه قان قاعد شدون أستاذ وقالت مدح ذني محاد كسوجيسا وحى كلا أنت أسكفر وياهي تلي واحد شيكتي الشباب اللي شقينتوda in mar xilliga soo bilaawday sidaad shacabka inta badan siyaasiyiinta waxay qabaan in ay sii xoogeysatay shabaab saameynta ku dhex leeyihiin dawladda sidee marka hadda loo kala saari karaa islada hadda 10 tusbax isku kor furtid ama kool baan dhaho wax kasto isku eg dad isku dhex furtid haddana tiraado dib baan u aruurinaa mid kasta meeshii baan ku celinaya waxaan sidee waxaad kala kulmaysaa waqti dhumis iyo jahawareer maanta in al-shabaab laga dhex saaro hay'adaha amniga iyo dawladda wax jahawareer badan baa laga kulmay laakiin waa suurtagal malihi suurtagal ma waxaan ogahay al-shabaab san isu sheegnaa malaayiin dollar ay aruursadaan al-shabaab waxay isu diyaarinayaan hadda cid ka hadlayna ma arkin الشباب waxay isu diyaarinayaan inay dawladda Soomaaliya iyo baarlamaanka ku yeeshaan dad aad u tiro badan lacagta ay aruurinayaan ay ku maalgeliyaan waliba cidii handadaad shaqeeyaysa in lacag ku maalgeliyaan baarlamaanka Soomaaliya soo socdane iyo kuwa hadda maamul goboleedu ay sameysteen al-shabaab juhdi iyo geed dheer waxay u koreen inay dad badan ku yeeshaan ka soo socday federaalkana way ku yaala doonaan ama handadaad odayaasha dhaqanka ha noqoto ama ha noqoto dad ay maalgeliyeen lacag ku bixiyeen ما دعي دونت إنه قول نين برلمان كالشباب وكذا وذو يرادا نجوا حسب قاسة دي بلد برلمان كمان ده قايلية ما لكن محصور تقلينية واحد كستو باهي الشباب قوانين إنه فوليو مال كستو الشباب كحرنتن إنه فوليو ما حد يعي دونت مرك والسيور كمرك وحافيز كي ما سأجازيم هي بالشباب يقول لك يعني اللي يدوسي بقراص عناه الشرع وادي إسرائيل كأنك هبل هاي إن برهنا وادي هبل لا بلص ده داري قاعد يكور قبابه dib ma lahayn ilmaha diina waa tig wiilka heblahay waa kii baasay iskoolkii ka warqabaan waa kii baasay gabadheena waa tii darajaas heshay in iskoolshii u heshana waan ka warqabay markii xogtaas laga hayo xaniiba lagu hayaa Soomaa waxba ma harin asha waxay isu diyaarinayaan inay miis kasta ee qof dawladda Soomaaliya maanta uu joogo hadduu amni yahay iyo hadduu siyaasad yahay iyo hadduu agaasim yahay inay fariistaan haddaysan qofka yeelan inay mid kale la joogo yeeshaan haddaysan qalbigiisa yeelan inay cabsidiisa yeeshaan Soomaaliya garan qataraha intaas la eega soo socda ee shabaab ay tadawur iyo dadaal iyo juhdi ugu jiraan ma arko cid ka hor imaanaysa waxayna aad u koreen waliba 3 sano la soo dhaaf wayna socotaa mana u jeedo cid u jeeda qaybta dambe ayaan soo gaarnay ee wadooyinka magaalada Muqdisho dhammaan dhagxaan ayaa ku xiran adinka inay ka soo bilaabato hore dhagxaan ku xiran wadooyin wiil way ku xiran yihiin amnigiina faruq ka sii baxay qaraxyada way dhacaan maxaa xal ah marka in fact amnigu dhagaxaantu way ka yaraayeen inta hadda yihiin inkastoo ay dhagaxaan u jirtay dhagaxaantu inta way ka yaraayeen dhagaxaantu dadka
dadka magaalada muqdisho marqaati bay ka yihiin la soo bilaabatay nimankan madaxweyne farmaajo had qodbadiisina wax ka mid ahayd dhagaxaanta waan furi doonaa derbiyada waan ka boodi doonaa sidaa ma yeelto waxyaabaha ironiga ah ee la yaabka waxay tahay wasiirka amniga hadda jooga ducaale ayaa iskale dhagax warshada dhagaxaanta samaysa marka amarkii dhagaxa lagu dhigayana isaga iskale warshadii dhagaxa soo saaraysana isaga iskale maxaa diidaya marka inuu dhigo ilaa cisaley inuu dhigo kaaraan meesha ugu dambaysa meel hata looga baahneen sida warshadii inay shaqaysaa la rabaa dhagaxaan soo saarto amarkiina uu haystaa cudurma diidi karto marka horta dhagaxaantu amni kaliya ma ilaashaan warshad baa inay ka caansantaa loo baahan yahay dad baa ka shaqeeyo dhaqaalaha laga helaa waana contract iyo mashruuc waxaan ku qanacsanahay inaan dhagax waxba celin shabaabna ma ahan dad 7 mitir oo ummadda ka bedelanoo markii soo socon la garanay shabaab waa dadka wayna ku og yihiin sida kaliya horta tan waxay tahay in ad intelligence-gana badsato dad ay daacad ka tahay al-shabaab inay la diriraan wadankan ammaanka shabaab kaliya maahan dad sharta wadankan ka hortaga lagu hayo dad ay daacad ka tahay inay wadankan yimaadeen shakhsiyaadkuna muhiim ah leadership hogaanka ugu sareeyo ayay tahay wadankan inay ammaankiisa soo ilaaliyaan haddii madaxweynuhu damanan yahay ama dansan yahay ama uu damiir lahayn ama uu soo fahamsanayn waxa laga hadlayo sida aan kula yahay hay'adda nabad sugidda national TV lagu abaal marinay askari xirfad leh ama xog haya ama xariif oo wax qaban kara waxba ma bedeli karo marka meesha ugu sareysay baashu ka haleysanta ilaa ay ka hagaagaysan way ugu dambeyn shirka dhuusamareeb ka soconaya ognahay in Jubbaland iyo Garowe iyo Puntland ka maqan yihiin bal maxaa ka soo bixi karaa sida aragtida shirka horta bilawgiisa wuxuu la yimid wax Soomaalida laga maleysanaynin oo wanaaga waxaa dhacday reer Galmudug magaalada Dhuusamareeb 4 bilood baan soo joogay Galmudug Dhuusamareeb البور واحد بدن كمان بدلنين البور الشباب هستي إن مال هي أداء ينالل يهرمر يجناعس يكجيران ما دو سمرات نمان كي صفة السوفية ده جوي يعني شباب لمن معها وإنما لا نولان كرول لا نولا يود وحي قلعين وحي جوران مار لكن هذا نمان حرحران وان ده أن هرمر ي وحبك لا صعنيه هاي أدو حرحرانه نولشوا ويكفر يستن لكن يعملوا شو قصيدة وأركي inay saxta markii madaxweyne qorqor uu la wareegay xukunka dadaal geesinimo leh ayuu galay oo runtii qof kasta u riyaaqay talaabooyinka uu qaaday waati la casuumay dadkii magaalada Dhuusamareeb hoteeladuna kuma yaalin waa 2-3 hotel oo midkiiba 10 qofood qaado dad 1000 qofooda oo askari isugu jira dad mas'uuliyiin iyo level kala duwan ayay marti galiyay guriyihii uga baxeen qofka 4 qol degan 3 qol ka baxay ayagoo aaminsan in Dhuusamareeb wax lagu qabtay wax weyn u tahay in Galmudug guuleysatay wax weyn tahay dhaqankii Soomaalida ahay in qof gogashaada uga kacdan inay sharaf u tahay waxaan isleeyahay waa lagu soo caalamaalay waana lagu guuleysto laba wareeg baa looga soo gudbay in loo laabto kii saddexaad waxaan isleeyahay waa lagu degdegay in ballantii lagu tago sababtoo isbedel baa dhacay markii ballanta la qabanayay waxaan jirin baa dhacay 15 August marka la dhahay Prime Minister Khayre ra'iisul wasaare ah dawladdiisuna way dhisnay madaxweyne farmaajo markuu soo noqdo oo aaminsanay inuu aad uga naxayde laano lobby uga jiro Dhuusamareeb baan joogay lobby abaabul wuxuu ugu jiray inaan laga hadlin doorashada markuu soo laabto waa ninkii ciiri wala aamusay waqti buu haysto cidna kuma soo ma bedelin waxna ma uusan qaban Soomaalida garan nin la yiraahdo Mahdi oo ra'iisul wasaare ku xigaana buu madaxweynuhu daqiiqad ku magacaabay sida caadiga ah oo dhaqanka ama sharcigu wuxuu yahay prime minister ku inuu sii hayo haduusan dhiman ama uu sidii capacitated ahayn oo qof sariir saaran oo miir la uusan ahayn inta laga qaadayo qofku meel kasto ay tahay wasiirka laftiisu inuu hayo jagada inta qofkii bedeli la ka imaanay madaxweynuhu markuu ka qaaday oo nooc min afkan bi looga qaaday wuxuu keenay ninkii asaga ku xigay waa khayr sharci dawladdu way dhacday laano prime minister ku tagay Soomaa hadii dawladdu dhacday waxa la magacaabay guddi waxa laga tagay wasiirka amniga wasiirkii arrimaha gudaha ee federaalka oo ay hadina hogaamiyo baa laga tago Mahdi wuxuu magacaabay mid yaray qaraabiyiin sano malaynay waa sharci darro
puntland iyo jubbaland waxay dhaheen madaxweyne haddii wuxuu daacad kaayay inkastoo na dhabar wareentay oo aad ka baxday wixii aan ku heshiino dawladdii kala dirtay iyadoo loo ballansan yahay in la isku soo laabto bal meeshii wax ku soo celiyo ra'iisul wasaare magacaabo dawlad sameey si cid lala xisaabtamo aan waraysan dadkan waa qeyr sharci ma hor fariisan karno xaqna uma leeyahay masiir Soomaaliya ka hadlaan madaxweynuhu iska dhiga tirayo aniga aqaan waxaan sameeyay loo biqiibo waday abaabulkii iyo sii waday guddoonka baarlamaanka oo saan hore u sheegnaba aan saas u nuxur badnayn way la qabaan madaxweynaha waa kii baarlamaanka hortiga markuu tagay oo yiri waan ku soo celi doonaa waxaan xagga ka keeno dareenkuna sidaas oo ahay wax kastoo la isku soo raaco hatta hadii la yiraahdo December tan soo socda doorashada madaxweynaha la qabto February laga soo raro madaxweynuhu okay inuu soo yiraahdo ana wuxuu ogyahay meesha ku dhamaanayso nimankii Jubbaland iyo Puntland way ku adkaysteen shirki waa la qabtay iyo waad ka hooshii socoto adduunka waa fiirinaya warqad baa soo baxda hadda ugu dambeyn international community ay soo saareen warqadda waxa nuxurkeedu wuxuu yahay laba arrimood wixii loo dhan yahay ee ka soo bax meeshaas waxaan ballan qaadaynaa inaan meel marino suurta gelino maal gelino si kasto ay tahana lagu ku socodsiino haddii ay ka soo baxaan waxaan loo dhameyn ama qola ay ku takrifasho wixii ka soo baxay meeshaas si gaar ah waxaan ballan qaadaynaa inaysan shaqaynin waa luqadda ugu weyn ee ugu adag ee qofka Soomaaliga lagu hadli karo doorasho guddiga hadda qaban qaabada guddiga farsamada loo baxshay oo wasiir Saalax oo madaxda ka yahay qodobo iyaguna soo saareen dhowr ilaa 4 aan maleynay qodobadaas markii laga saaray qodobka koobaad oo dhahaya 100 iyo intaas oo qofood maahane ayaa doorashada laga dhigay doorasho dadban oo 100 intaas oo waxay lagu daray tii 2016 iyo kuwa kale waqti dheeraysiya markaad fiiriso ama macnaba ugu kufan taan u arko bay soo saareen isku soo duubo dood waxay ka dhaxaysaa doorasho ku darsasho dadban iyo doorasho dadban waan qabaa in dood guddiga dhuusamareeb la badbaadin karo waxaan lagu badbaadin karaa madaxweyne Farmaajo inuu fahamsan yahay wixii meeshaas ka dhacay ama saxaraha ku lugay ama buuraha ku dhuumo waa lagu og yahay wadankan ka badbaadi dagaalka iyo dhibka iyo mushkiladda uu leeyahay nimanka maqan dalabkoodu waa sax oo waa sharci wax ka qabo ayagaano nimankan Puntland iyo Jubbaland aysan gaar isu faquuqinayso Soomaalida meel ka istaagine ay yiraahdaan war waan imaanayna laakiin waxaan rabnaa idan la xisaabtamo international community ka waxaan leeyahay damaanad qaadka ay dhiibeen waa lagu kalsoonaan karaa madaxweyne qorqor ma dhaxay sida aad ka hadlay habeen dhexdaas uu hadlay reaction kala duwan ka yimid dad badan waxay u arkeen inuu gareenadii ka mid noqday awlbu waa lagu qiyaasay inuu ayaga ka mid noqday dad ku calaameeyo soo markuu dhirtay qaarna waxay qabaan maadaama uu ninkii marti geliyay oo gogasha isaga u taalo inuu abiil gareeyo carab jilacsan iyo walaaltinimo iyo maaragtay u qayliyo tan ka maqan inay saxayd waxaan qabaa madaxweyne qorqor in looga baahan yahay inuu san dhinac ahayn inuu muujiyo lafta gareeninka la yiraahdo baydhaba ka yimid dhaxdhaxaad lama weydiiyo waarane laguma kalsoon haduu yiraahdo dhaxdhaxaadan hadda ku uu yiri 10 jeer inuu ka baxo qorqor waxa lagu arkayay sasaan geesinimo leh Soomaalinimo leh howlkarnimo lagu arkay hore looma aqoonin taas wali wuu ilaalin karaa inuu ilaaliyo oo dhuusamareeb kaliya in la isugu jino lagu kal maarta shirku soo xirmay soo danayna inuu yiraahdo dhuusamareeb waxa ka soo baxay wax dhaxalka Soomaaliyeed gala taariikhda Soomaaliyeed gala Soomaaliduna ay tiraado markastoo la isqabto hatta 20 sano soo danay war dhuusamareeb noo celiya bitti bay ulaadahay nasiib bay ulaadahay qab bay ulaadahay garashana way ulaadahay inay xalliso turxaan bixiso dhibaatada ummadda Soomaaliyeed waxaan isleeyahay guul loo ku fariisan doona markaas waana wax aad iyo aad loogu baahan yahay way aad u mahadsan tahay taliye ku xigeenkii hore nabad sugidda sirdoonka qaranka Soomaaliya Cabdisalaam Guuleed ayuu ka soo hadlay aad u mahadsan tahay